marka ugu horeysa caawa wixii ka dambeeyay xaajiga Xaliima igu waceysin gudoomiyay waa meel u tagay marka caawa wixii ka dambeeyay waa xaajiga Xaliima inkastoo shirarka gudiyada doorashooyinka ee adduunka ama Afrika aan tago gudoomiyaasha hore wali chair la yiraahdo gudoomiye la yiraahdo waxaan aad ugu faraxsanahay inaan munaasabadaan oo kala imaado waan farxad gelinaysaa nasiibna aan u yeesho inaan imaado ayadoon jirin inaan imaan jiray ayadoo jirtana aan caawo imid waxaan kaloo idin sheegaa taariikhdan gadaal idin celinayaa 60 sano ka hor waa markii ugu horeysay ee golo degaan ay iska doortaan gudoomiyahoodii golaha degaankana ay ku yimaadeen nooc doorasho oo eg oo dad annaga naga wakiil ah oo mas'uul naga ah oo magaceena ku hadlaayo ay soo xuleen ay soo doorteen marka 60 sano kadib waaye maskaxdiina intaas galiya inaan taas waxay ku tusinaysaa inaan u sii dhawaanayna marka doorashadii runta ahayd inta noolahay waxa waaye beerahana waa ka hadlaa doorashana waan ka hadlaa maxaa yeelay waxa taqaanid waa ka hadlay waxa aad taqaanid waad ka hadlaysaa marka cawada farxadaas ay noo leedahay ma hadeedana waxa iska leh runtii maamulka isku duuban ee ama dawladda leh ama baarlamaanka leh ee galmudug oo isgacan qabsaday oo arrintan ka miro dhaliyay ma hadda kaloo gaarka waxa iska leh wasiirka arrimaha gudaha ee galmudug ee runtii shaqo badan oo culus ay ku dhacday gaalkacyo iyo cadaado iyo dhuusamareeb waa samaysmeen waxayna ku samaysmeen waxaana lagu tilmaamaa inaan dad aad u adagnahay marka waxay ku samaysmeen dulqaad iyo isu turud iyo kan hadduu siroo waay bal aan ka gudubnay kan kale aan aadno aan dhisno hadda maanta waxay gaaraysaa cid ka hor imaanay male mid kasta dhuusamareeb iyo gaalkacyo cadaado waa la dhisay annaka yaan ka harin taasay keenay waxayna ku timid runtii caqliga iyo deganaanshaha lagu maamulay ee aan la ismutuxin la iskaga hor imaanay keenay marka mahad gaar waay aan u mahad celino madaxdeena madaxda marka waxaan faraa doorashadii nuska ahayd waa sameynay midii ka sii qurxooneed sida ugu dhaqsiyaha badan intaan ugu gudubno oo dhuusamareeb buryaha inta laga soo baxo meel loo calaameeyo la yiraahdo qolo kasta meesha sa tagtee ama geedo qoro doorta ama Xaliima doorta kala doorta adinka inayna gaarsiiso taasna inay noogu xigto si dhaqsiya ah ay noogu xigto madaxweyne xasan wuxuu yiri dawladda waa dawlad dimuqraadiyadda ka shaqeynaysa dimuqraadiyaddana runtii waxa saldhig u ah doorasho aan uga hormarno meelo badan meelo bilaabi way jiraan laakiin aan ka sii tilaabo dheereyno oo annakana aan gaarno guushaasayto idinkuma daahinayo gacmaha la isqabsado horumarna aan ka shaqeyno sida uu sheegay walaalkay taarna haddaadnan adinku magaaladiina ka shaqaysanin maamulku waxba idin ma qaban karo maamulku uu idin tilmaami karaa waa idin hagi karaa waa idin kala celin karaa laakiin cidda laga rabo inay canshuurti bixiso in dhalada dhulka lagu tuurayo ee qashinka ee iska qaado inay muxuu ahaa iskaa waxa qubsa inta iska aruuriso meeshay ka halaysan ee iska samayso muraayada iyo quruxda magaaladan adinkaa samaysan kara shacbiga samaysan kara meel qurxoonaan horumar leh hawo caafimaad leh oo lagu noolaan kara aad iyo aad u mahadsantahay